أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخيارتا مستبشرة هي أول channel كنجا دعوتها وحان الله هاي وقت وهدين وعنا ذا. جزاكم الله خير. انت عصبنا سود وهذا انت هرئيل سعتينا كفايديسي وعن إن شاء الله. انت مداودك أنسوق لي كسو مهات شيغتينا أدبادو مهات سنتهين. انت كلا برندونتنا إلهي عفمانها ودرو intii hore u isticmaalaysana waxaan leeyahay sii wada madaawadka insha Allah. marar badan akhyaaray waxaa codsiga imaaday asxaabaan isnaqaano iyo xagga YouTube-ka iga daawaday, WhatsApp-ka igala soo xiriiray inaan ka soo hadlo kilida dhagaxa gala iyo infection-ka hoose rag iyo dumarba quseeya. marka inta badan waxaa laga cabanayaa kiliyaha dhagaxa ku jira oo inta badan la dhahayo dhagaxii waa la soo burburinaya iyo qalin wax noocaasa. kilidana waa xubin qaali waad ogtihiin mar haddii kiliyaha fadhiistaan kiliya dhaqow ilaa kiliyo adiga kulamida laga helo in muddaayna lagu daldalooliyo kiliyaha laga dhaqo ilaahay naguma keeno. inta kiliyaha ka xanuunsanna ilaaha caafiyo, inta kaadida ay ku taagan tahay oo dhagaxyadii ay unugyadii kaadida ay xidheenna ilaaha ka caafiyo, dhagaxyada ilaaha ka keeno. dumarka infection kala ilxoon oo inta badan aad ula dhiban iyagana ilaaha ka caafiyo. ragga saasiisa lamida iyagana infection kala dhiban ilaaha ka caafiyo. marka ragga dumar bay arrintan qusaysaa insha Allah. iyo kaliya xanuun ragga dumar bay ku dhacdaa. infection kana saasiisa lamida. geedkan ayaa marka waxa waaye basil ayaa la dhahaa. sidii wuxuu eg yahay kamasarta laakiin kamasar maaha. meelaha khudaarta markii la tago basil la dhaho maasha Allah hore baad ka helaysaa. marka mucjizooyinka yacni geedaha ay leeyihiin haddii la baran lahaa run ahaantii dhakhtar oo dhan waa laga kaaftoomi lahaa. bani aadan baan nahay, bani aadankana waxay ku nool yihiin waa laba shay. labada shayna waxaa waaye waxiga samada ka imanaya inaan qalbiga ku noolayno, qalbigeena dhaqno, ku nadiifino, ilaahay uga baqno, ilaahay ugu dhawaano. ancaamta ilaahay dhulka kasoo bixiyeen inaan barano oon isku daaweyno. inta badan waxaa laynoo sheegaa waxaan haddaa isticmaashid side effect buu leeyahay, kanuu ku yeelaya waa lagaa cabsiinayaa. waxaa lagu dhahayaa dhibaatooyin badan buu leeyahay, dhakhtarkaaga khaaska la xiriir. si moderada haddaa isticmaali weysid khatar baad ku gelaysaa. waa sax, wax kasta oo la badsado khatarteeda ayay leedahay. sababtoo ah tusaale ahaan biyaha maalin kastaan isticmaalayno haddii maanta aad dhahdi 5 litir baan hadda cabayaa, calooshaada ma socon kartid. calooshaada way shanqaraysaa, way dhaqdhaqaaqaysaa, waxaad moodaysaa in mindi lagu geliyo oo wax lagugu dhex wareejinayo. marka wax kasta ood badsato waa sax, waa sun, laakiin wax kasta waxaa loo baahan yahay qiyaas aan ku dhibeynin oo adigana ku daaweynaysaa. markaan Google galno meelahaas galno inta badan waxaan aragnaa side effect-ga markaan akhrinana codkaaga yar xidhmay. side effect-ga markaan akhrinana waan cabsanaynaa waxaynaan isticmaalno. asxaabi waxaan idin sheegayaa anintii dharta aan ku dhex jiray 12 sano ilaa haddana waan wadaa alxamdulilah. wax badan ilaahay wuu igu daaweeyey. dhakhaatiirta maanta markaan u tagno inay daaweynaysa ilaahay baa daawahayo iyaga sabab bay u yihiin oo cudurkaas baa ku hayana dhahaya. runtii waan idin sheegayaa dawooyinkan ay noo soo qoraan ma isticmaalaan. marnaba dawooyinkan ay noo soo qoraan iyagu ma isticmaalaan. waxyaalahan oo la qalajiyay oo powder laga dhigay, ay liintoo qalalan, zanjabiilkoo qalalan oo powder laga dhigay waxay ku wataan koobab yaryar bay ku wataan. waxay ku wataan adiga dhaloon yaryar ama caagado yaryar bay ku wataan. time bay siiyaan marka waqtigay cuntada cunayaan, waqtigay relax gareynayaan. meesha anaga shaaha sonkorta badan aan ka cabayno iyaga waxay cabaan hadda kan powderkiisa tusaale iyo biyo yaro kulul ay isku cabayaan. dhag hore kasii soconayaan, uma baahanayaan waxaan dufanka ka batay iyo waxaan sonkorta ka badatay aan anaga isticmaalayno iyo kiniinada noo soo qoraan intaba iyaga shaqo kuma laha. anaga ayaa marka waxaa laynagu sameeyay waxaan inaan aamino waxa iyagu soo saaraan. wixii kale oo dabiici ahaana inaan iyagii aamino oon ka cabsano, kadibna nolosheena dhan ay kharibanto. lifestyle-kaaga hadduu khariban yahay, caafimaad darro badan kusoo wajahdo, dabcan wax aad faa'iidaysid ma laha. dhakhtar taagan iyo dhaqaale darro waaye. caafimaadkaagina ma soo kobcayo. qofka hadduu caafimaad lahayna dee waxaa waaye wax badan ma qabsan karo, dib u dhac badan baa ku imanaya. marka haddii aan gudagalo kiliyaha inta badan bladder-ga infection ka qaada iyo kiliyaha dhagaxa fadhiista iyo kaadi haynta ama meesha kaadida kasoo deynayso ilaa hoos rag iyo dumarba infection ka gala dheecaanka badan waxaasoo dhan ayaa tan waxay u tahay number 1.
daawadan wax lagu gaaro oo qaybta kaadida soo nadiifinaysa ama dhagaxa keliyaha ku jira soo jijibinaysa ama dheecaanka iska socda qallajinaya oo keliyihii soo nadiifinaya bladhaga qaybta kaadidana soo nadiifinaya geedkan baarsil laguma gaaro maasha allah alxamdulilah ilaahayna siiyo mahad iskale baarsilka markaa hadday noqoto xagga aragtida inuu kobciyo hadday noqoto kansarka qumanka ku dhaca burooyin qaarkood waxaa jira kasoo baxa qumanka marka dambena infectionkaas kansar isku bedelo la dagaalankiisa laguma gaadho lafaha sida dadka waxaa jira lafaha qalqaloocan ama lafahooda uuna adkayn lafahaas inay sinto ay adkaysana laguma gaadho mineral badan iyo vitamins badan ayay leedahay laakiin shaqadan hadda ka hadlaya waxaa waaye awoodu ilaahay geedkan geliyay baarsilka la dhahayo dhagaxa si usoo burburinayso usoo jajabinayso qaabkee loo isticmaala markaa keligeed ma isticmaalaysid shay kasta shay baa caawiya marka iyada waxaad la isticmaalaysaa zanjabiil iyo liin dhanaan liin dhanaanta markastaba meel kasta oo liin dhanaanta way gelaysaa dhadhanna way u yeelaysaa shaqada speedkiisana way ka qayb qaadanaysaa zanjabiilkana saasay silamada alaabtan markaa hadda intan yarta ah iyo zanjabiil oo markaa jarjartid qaadada weyn camal ah iyo liin dhanaanta oo markaa jarjartid liin dhanaanta kama bixinaysid maxaa la dhahaa midhaha laakiin galka kama fiiqaysid midhaha waad ka bixinaysaa baan ka wadaa baarsilka markaad soo qaadaysaa waa jarjaraysaa wixii wasaq iyo wixii dhidhintaad ka guraysaa then biyo yaroo khal baad la dhigaysaa markii cabaar ku yaalo zanjabiilkii ood soo jarjaratay iyo liin dhanaantii ood soo jarjaratay qiyaasas leeg baad ka dhigaysaa maashiinkaa gelinaysaa waa shiidaysaa markaad shiidid oo isku noqdo maxaan ku dhahay dheecaan isdhexgalay weel baad ku shubanaysaa waxaad dhiganaysaa fridjkaad gashanaysaa fridjka markaad gashatid aroorta hore adiga oo calooshaada maran tahay oo waxbana afkaan gashanin ayaad qaadaysaa hal malqaacada yar biyo kulul baad ku qasaysaa waad isdhaafinaysaa sonkorna kuma daraysid waxbana kuma daraysid habeenkii markaad sii seexanaysidna sidaas iyo si lamida dhakhtar haddii kugu dhahay dhagax baa kugu jira muddo kadib aad ku laabato wuxuu kuu sheegaa dhagaxii xirxirnaa inuu burburay buu kuu sheegaa qayb kamid a inay soo daadatay buu kuu sheegaa wuxuu ku weydiinayaa maxaad isticmaashay ilaahaaga ku kalsoono naftaada ku kalsoono bisinka u qabo isticmaal wax side effectina ma laha alxamdulilah rabbilcaalamiin the other thing blood pressurega way controleysaa diabetka way controleysaa blood sugarga waxay ka dhigaysaa stabilize bay ka dhigaysaa dhinaca harmoolka iyo waxyaalahaas wasakh haddii ku jirto banaanka keenaysaa markaa geedkan waa geed mucjiso ah ha moogaanina hadduu ilaahay raalli ka noqdo inaad ku caafimaadaan baan ilaahay ka rajeynayaa waxaa kaloo idinku bishaareynaya last year 2019kii bilowgiisii wiil anigoo meel khudaar ka gadanaya marka khudaartaan gadanaya buu la yaabay marka wuxuu dhahay waxyaalahan maxaad u isticmaalaysaa markaas waxaan ku dhahay waxyaalahan juice baan ka dhigtaa waan iska cabaa markaasaa wuxuu dhahay walaalay kili baa wiil aan qaraabanahay bakili ka xanuunsan dhagax badanaa lagu soo sheegay wax kilida daawo ama garanaysaa waan degdegsanaa wiilkii waxaan ku dhahay lambarkaygan qaado isoo wac baan ku dhahay insha allah wiilkii uu isoo wacay geedkan ayaan u sheegay geedkan markaan u sheegay 3 bilood kadib ani waan u sheegay qaabkii loo isticmaalay halkiiba sheekada igaga dhannayd 3 bilood kadib wiilkii baa isoo wacay wuxuu igu dhahay wiilkii noocaas ma xasuusataa haa walaal waan ku xasuustaa wiilkii kiliyaha ka jiranaa oo dhagax kiliyaha kaga jiray alxamdulilah 2 dhagaxo waaweyn baa soo dhacay hal dhagaxo yar baa ku dhiman wiilkii kilida ka cabaadayay oo markasta dhagax xanuunka la qaylinaya wuxuu dhahay ilaah waa ku caafiyey adigana waan kuu soo duceynay ilaa ajri xasanaada kaa siiyo anigana farxad ba ii noqotay alxamdulilah kalsoonidaas iyagina ay bixiyeen oo ay tijaabeen ilaahay ku caafiyeen waa mahad ilaahay marka walaalayaal inta kilida ka xanuunsan ilaaha caafiyo infectionada tabarta daran oo markastaba dhakhtarinta la tago waxba aan lagu daawoobeynina tan ayaa daawo insha allah hadalka idinku badiyay raalli ahaada wixii taliyo tusaale whatsappkayga la soo xiriira wixii aan gafay nafteedii shaydaan bay ka ahaadeen wixii aan nasiibin ilaahay waa mahad iskale assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh